codka CKCU oo naga dhageysan kartaan oo tawaya nawaaxigeedaba 93.1 caalamka dhanna muujada dharkeedu yahay internet ku leenahay www.ckcu.com wahagag sidaan hore uga dhawaajiyay waxa hadda khadka telefoonka noogu jirta Sahra Axmed Maxamuud oo ku sugan magaalada Hargeysa magaalada madaxda dalka Soomaaliland oo loo yaqaano Sahra Halgan. Sahra si fiican ma maqashaa? fiican baan ku maqlaa aad baan ku salaamaya aad baan kaaga qaaday Sahra bal dadweynaha aan aqoon ku lahayn aan runtii magacaaga oo shaashadaha ka daawada iyo heesahaaga han horta marka hore iskii baro Sahra Axmed Maxamuud Sahra Halgan waxay ku dhalatay magaalada Hargeysa xaafada Daruuraha waxay waxbarashada ku soo qaadatay dugsiga hoose dhexe ee Waraaba Salaan waxa ay uga gudubtay dugsiga sare ee Faarax Omar Sahri waqtiyadii ay akirnay dalka Soomaaliland ee dhibaatadu ka taagneed 27 May ee 1968 markii Burco la soo galay SNMta iyo faqash halkaas ku galeen iyo runtii markii magaalada Hargeysa ay ahayd 1931 May 1968 waxay ku sugnayd magaalada Hargeysa Sahri waxa ay dhaawaca SNMta ay ku dhigi jirtay Kam Abakor oo ay kamid ahayd dadkii SNMta runtii la socday ee qaybta lixaadka la ka soo qaatay haddaba waxaan jecelahay bal marka hore inaan Sahra aan ku soo dhaweeyo galabta CKCU Sahra ku soo dhawow CKCU iyo dadweynaha Soomaaliland iyo Soomaaliyeed ummadda afka Soomaali ku hadasha oo hadda si toos ah ku maqlaysa aad baan wada salaamaya ummadda afka Soomaaliyeed ku hadasha waxaan salaamayaa dadka Canada u degan gaar ahaan oo waxaan salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland ayaan salaamayaa meel kasta ay joogaan Amerika joogaan waxaweyaan maanta waa May 2 oo salaamo bisha arigeenngu ah aadka inoogu qiimaha badan in sanadayno iyo sharaf iyo karaamada ilaahay nagu soo gaarsiiyay ayaan ugu mahadnaqaynaa aad baan idin salaamayaa waana ku adsantiin caasimada difaaca waad mahadsantahay Sahra barnaamijka haddii la hadha waxaanu runtii qaybo badan ayaanu su'aalo badan ku weydiin doonaa wareysigeena qaybo badan ka koobnaan doonaa anigoo Maxamed Axmed iyo saaxiibkii Cabdullaahi Good ayaa runtii aan halkan si toos ah ku wareysan doonaa Sahray waxaad runtii kamid ahayd mujaahidiintii SNM ee dalka xoreeyay dalka Soomaaliland runtii qaybta laxaalana ka qaatay mar walbana runtii ay qalbigaaga iyo shucuurtaada ku dheehan tahay dalka Soomaaliland iyo halgankii loo soo maray magacaagana ay ku xardhan tahay sida ka muuqata Sahra Halgan oo halganka turjumaysa Sahra markaynu gudagalno kulay maanta barnaamijkan wuxuu badan doonaa dhalinyaradii tahriibtay oo runtii dhibaatada haysata ay u badan doonto oo runtii aan ku hadli doono bal haddii aan dib ugu noqono waqtiyadii dalka Soomaaliland ku jiray qarinqeyrka ee halganka socday dagaalku oo faqashta iyo SNM oo ay halkaasi isku galayeen ama dalka dawladda ka soo horjeeday militariga oo siyaad bar hogaaminayay maxyaabihii runtii ay waxa ku sugnayd Kam Abakor sida aan aaminsanahay bas aan maqaalkan uga soo maha waxaan markii hore geedii blan ku sugnaa laakiin markii dambe dhaawacan geedii dadkaan Kam Abakor waan leeyahay tagnay inta Kam Abakor iyo bali gubashay iyo laanqeyrta dhulkaas aan ku sugnaa adigu markii ay sanamtii deganayeen dhaawac ku jiray kan heesay laakiin tabadoo waxaan u badnaa Kam Abakor wahagaag waxa jirtay Sahra marka aad laanqeyrta joogtay riwaayad laanqeyrta lafteeda lagu sameeyay oo la oran jiray hadaahdo gaas cigaal baa isma riwaayadaasi gaas cigaal baa marka riwaayadaasi waxa qayb laxaalaad kaga jirto runtii waxaana marka tilmaamo aad tahay qofkii ugu horeeyay dhinaca halganka amba SNMti markuu jirtay hees ka qaada ayaad ahayd marka riwaayadaasi maxay ka turjumaysay Sahra riwaayadaasi waxay ka turjumaysay cadaalad darrada iyo maxay ahayd cawaaqibkii ka jiray marka goboladii la isku waran jiray gobolada waqooyi oo gobolada dadka lagu baraarujinayo in loo baahan yahay in dalkeenu ku noqono oo ay dictatorkan siyaad bare inagu haya xaq darrada iyo maxay ahayd cadaalad darrada inagu haya
aynu iska dhigno dee maasideeda dadkeeda ku celino waa aynkaasoo dee lagu dhiirigelinayo ay ahay wagaag sahraay bal hadda xusuusta dib aynugu noqono waxyaalihii kuugu darnaa ee qalbigaaga moogtahay aanad ka goyn ilaa hadda ee aad soo martay waqtiyadaasi hadda bal hal qodob iyo laba qodob iyo intaad ka xasuusan karto waqtiyadii aniga iigu daraaye aan soo maray waxaa kamid ahaa waxaa jiray nin la oran jiray ina qoorgaab oo geed la dhaawi aan ku dhihi jiray kamid ahaa oo abaaralaas dhabarka kaga dhacday markaasaasaydi dooxa qarkiisa meela baan dejinay inuu yaalay marka maalintii ka horreysaa diyaaradda xoog dhaawaca u leyso dadkii oo dhan baa meeshii ka guuro meel kale u guuray masuyidi saaray waxaan doonaya in halkan layga qaado halkaa lay dhigo markaa laba meelood isku dhow laakiin dooxa ka fog si aan daad kuusoo gaadin mase waxaan u tegay dhalinyaro meel lagu tababarayo masaan ku widi nin dhaawaco halkan yaallo baarlaysan doonaya in layla qaadee kaale ila qaada waxay igu yidhaahdeen saharaay magacayga may garanay walaal waanu kula qaadaynaa shir yar baanu ku jirnaa oo dhalinyarada tababarayay shir yar baanu ku jirnaay waanu ku imanaynaa waxaan arkay nin la odhan jiray ina janan biiye iyo gabar cibaado leedaa oo markaa cibaadana meeshay lala deganaan jirtay markaase waxaan ku yidhi wuxuu u baahan yahay ina qoorgaab in halkan laga qaado halkan la dhigo markaasay yidhaahdeen waaye waan idinla qaadan waanu qaadnay halkii baanu ka qaadno meeshii baanu dhignay kale markaasi saaray wallahi dadaani garanayn bay qaaday isaan ku walaal dhib ma lehe anaa si fiican kuu dhigiye isu marka kaadidaa laga sii dayn jiro dee baarlife kaadidii baa ka timi marka ina ninkayna jiran dee nin weyn buu ahaayo garanayay marka sinaa ninkuu dhintaye hala afo waan naxay dib baan u cararay inamadii baan ku noqday jira walaal miyaynu kaa raagnin markaan ku yidhi meygi maydaan raagin oo dhintee kaale ilaa iyagii baa shoog ku dhacay waxyaabaha aan maskaxdayda ka inaan mar walba xasuusto ayay kamid tahay taasoo kale iyo qaar kaloo badan oo de isoo maray oo noocaas iyo nooc lamida waa hagaag sahraay markaan u soo noqono dhinaca heesahaaga amba runtii waxaad ka soo qayb qaadatay snmta marar badan baa jirta youtube-ka horta qofkaan magacaaga hadduu qoro saar halkan uu arkayo aydkii iyo wixii hore ka dambeeyeyba adigoo runtii ka heesayo snmta dhiirigelinaya hees baa jirtay aad halkaas isla goobta aad dagaaladu ka socdeen ee aad ka samaysay oo qaaday heestaasi oo aad ku dhiirigelinayso dhalinyaradu inay dagaalka galaan oo ay runtii aan waxba dib loo dhigan oo dagaalka la galo heesta ayaa ku sameeyey heesaha waxaa sameeyey allahu naxariisto ismaan aadan askari ayaa sameeyey dadkana nin shariif ilaa basaaray adduunyooda yahayna lahada ayaa dhigaysan allahu naxariisto kamankii ugu horey lagu duubay markii ugu horeysay geeda lagu duubayna tiifo nin la ilaaba intaan laba qashinba laga qaxin doodan waa dawladii israaciil waxaa ahayd dawladii israaciil dadkii lahayna anahayo balseena laga joogsiiyey dabargoya layrsiiyey doqonitaan ogaanine halagalo dagaalada halkishiya duyada waxbayaan inkaas hebadan markiismaan kariba waa hagaag kulley sahraay taariikhdaada iyo noloshaada iyo wakhtiga aad soo martay iyo taadimiga ku jirta xitaa laftigeeda ka dhammaan mayno oo ka gayoon mayno minadare laguma soo koobi karo maalmana ma qaadan maalmana moogtay kaba daranba moogtay sanaday kulletay qaadanaysaa sida moogtay ogaalkii ah waxaa jira bandhig faneedyo aad ka qayb gashay oo qurbaha aad ku samaysay oo weliba hidaha iyo dhaqanka ah oo aad moogtahay sida aan ka daawaday maxay ahayd youtube-ka maraad faransiiska inay ahayd baan umaynaya mise yurub aduu meel yurub ka mida bay ahayd oo aad ku soo bandhigtay hidaha iyo dhaqankaaga oo aad ku heshay award ama moogtahay hadiyad moogtay ama moogtahay abaal celin lagu siiyey imiga laftigeedana waxaad hargeysaad ku sugantaho kulleto
carwada aad samaysay ee meesha la yidhaahdo mogtahay carwadan aad samaysay hargeysa ku taalla ee hidadhowr qurba joog way kuu soo mogtahay way kuu soo mogtahay markay kuu yimaadaan waxay aad iyo aad uga sheekeeyaan ay kasoo noqdaan dad fara badan oo ka sheekeynaya baan arkay oo hidadhowr mogtahay ka sheekeynaya taariikhdaada kuleto way ballaaran tahay maanta se laakiin toddobaadada dambe ayaanu waraysiyo dhaadheer kaa qaadi doonaa bal inta keliyaaan doonayo waan kusoo noqon doonaa taasi mogtahay laakiin bal dhibaatada tahriibka waxaa jirta hees aad maalin dhaweyd soo saartay oo tahriibka laftigeeda ka hadlaysa oo dhallinyarta aad mogtay aad waaninayso oo aad u caqli ceelinayso oo aad leedahay waar dalkiina jooga oo mogtay badahan aad iyo aad mogtay aad uga maror dilacsan tahay baan daawaday bal hadda heestaasi goormay mogtay kugu dhaltay yaa sameeyey heesta waxaan in mawliidaadan qofka la yidhaahdaa sameeyey maxaa haydee waxaa saaray intaan nin fanaan oo aanan london jooga ayaa saaray heestu waxay ahayd dhowr sano ka hor 3 sano ka hor maahayd soo saaray imika maahayd markii ugu horeysay tahriibta dadka badan inagaga dhinteen baan heesta soo saaray marka ahayn wax imika laakiin bay dadku xasuustaan wixii markaa ninka abwaanka kaadiyeen aanan heesiyey ayuunbay xasuusteen oo saaheertii ku jirtaa ayay soo geliyeen marka heestu waxay ahayd waktigaasi ahayd may ahayn inaka waa hagaag haddii aan sahray waxaa jirta dhowaan bishan aynu ku guda jirna isla bishan iminka dabayaaqadeeda aynu runtii kasoo gudubnay bish 9keedii ayay ahayd markii doon ka amabaxday dalka Masar una sii jeeday Greega badweyntaasi badda cad ay dhalinyaro Soomaaliyeed oo u badnaayeen reer Soomaaliland gobolada Burco iyo Hargeysa halkaasi runtii ku leedmeen oo dhalinyarada ku shuf beeshay ugu yaraan ilaa dad 40 gaaraya kaliya ta laga badbaadiyay intii kala dhalinyaradu runtii halkaas ku baabaaday waxa runtii aad ka soo gudbisay taasi iyo dhambaal qeyraysan oo aad halkan runtii aan warbaahinta ku jirtay bal maxaad u malaynaysaa runtii waxyaabahan si lagu soo jin karaa dhalinyarada tahriibta horta maxaa hayday dhalinyarada tahriibka waxa maxaa hayday horta mas-uul baynu ka wadanaa oo haddaynu nahay xukuumad iyo waalid iyo qurba joogba mas-uul baa laga wadahay laakiin waxa ka mas-uula oo aada uga mas-uula marka ilmaha isagoo yar lagu ababiyo aqalkooda maalin walba lagaga sheekeynayo laleeyahay maxaa yaala ree hebel baa halkan haysta reekii hebelkii kalaa halkan haysta maxaynu haysanaa maxaynu ku qabnaa waxa weeyaan ilmihii noloshiisii wuxuu ku ababayaa negative waxaan meelaan waxba oolin meelaan daljirin meelaan dadjirin meelaan waxba jabin marka horta ta ugu horeysa ilmaha waxa weeyaan maxay haydayaan 99% markaad aragtaan wadanka waalidiinta badankooda way qayilaanba markaad ragga weyn marka waxaa ka mas-uula waxbayaan iskala eed la saaray kow waxaa ka mas-uula maxay hayday waalidiinta ayaa ka mas-uula waayo ilmahayga waa inaan ka warhayo anaa dhalay ilmahayga aniga ilaahay iga beeray marka ilmahayga waa inaan anigu ka warhayo haddaan maanta la odhanon waalidka loo sheegina ubad oo dhan baa taariibaya waalidka ayaa ka mas-uula ubadkooda iyagaa maxay haydayaan tababaray iyagaa maxay hayday hadday edad baran yihiin hadday edad wanaagsan yihiin iyo hadday tacliin leeyihiin hadday tacliinsan yihiinba waalidka ayaa ka mas-uula ubadkooda taasi waa midda kooda dadka wixii dhintay waxa le xabaashaada adigu maxay haydayaan adigaa u socda iyada kuma socoto dadka halkaa lagu aasay dhalinyarada halkaa lagu aasay ilaahay ha u naxariisto halkaasi dad ku dhiman lahaayo oo xabaashooda halkaasi bay ka qornay oo halkaasi bay ama wanaaga ku tagaan ama tahriibka ku tagaan oo way naga wada beero ilaahay ha u naxariisto laakiin waxaan anigu eeda koodaad saaraya iyagoo maanta ubadkoodii waayo inay leeyihiin iyagu ka mas-uuliyiin taasi waa midda koodaad midda labaad qurbajoogiisku wada mid maaha qurbajoogu dad wanaagsan iyo maxay haydayaan dad hadiyo jeer dalkooda ka fakeraa oo maantaba idinkooda qurbaha joogo intaa nala soo hadlay waxna weydiinaya oo dalkii ka fakeraya dadkii ka fakeraya
dad badan baa jira oo ku soo noqday dalka oo fangariyey oo waxgeliyey oo maxay haydayeen dalkii iyo dadkiiba ilaalinaya oo shaqo abuuray oonu ka mid nahay annaga oo dhakhaatiir baa jirta oo dhalinyaro baa mushtari samaysay baa jirta waxa weeyaan qurba jooggu inuu dalka ugu soo noqdo sidaa laakiin waxaa jirta in yaroo qurba joogga saraynaysa oo iyagun iska fakeraya oo doonaya kursi wal oo meel wal oo maxay haydayeen xukuumadda aha ay qaataan iminka markaad u fiirsato dawladda dadka ku jira rag iyo dumarba intooda badan 90% markaan idhaahdo waxa weeyaan waa qurba joog waa qof haddii maanta laga eriyo jagada diyaaradda raacay marka waxa weeyaan dalka waxaa ku waajiba haddii la doonayo in dalkan ubadku ku nagaadaan xal in la raadiyaa la doonaya qurba joog waa kuwa maanta soo diraya maxay haydeen lacagtii abaaraha dad sharaf iyo karaamo mudan weyn anigu iskuma wada darayo laakiin waxa weeyaan inta dadka waxaa didinaysa iyadoo la helayo inaan dhalinyaro wax garanaya iyadoo la helayo inaan dhalinyaro wax fahmaya oo wax bartay oo mas-uul noqon kara oo dareemi kara 4 milyan ee Somaliland degan haddii ay aqal kiraa ku jiraan xanuunkeeda dareemi kara oo haddii ay maxay haydeen tacliin lahaan hayso dareemi kara tacliin la-aantu baahiday leedahay shaqo la-aantu baahiday leedahay dareemi kara in qof dibadda ka yimi waa muwaadin in qof dibadda ka yimi oo baasaboorkiisa Yurubiyaana ama Maraykana ama Kanadiyaana ama Australiyaana shaqadii uu qaban lahaa qof muwaadin Somaliland oo dalkiisa jooga in la siiyo oo laga hormariyo anigu waxaan arkaa waa waxyaabaha kalifaya taariikhda dhalinyaradu waxay ku oranayaan markaad la hadasho waxaan ahay qaran joogga maanta qurba joogga bari isagoo wax bartay oo lacag haysta ayuu tegayaa wuxuu ku oranayaa haddaanan baasaboor haysan xil la iima dhiibay marka waxaan dawladdeenu inay xukuumaddeenu ka fakarta taa oo ay dad badan oo baasaboorra Somaliland haysta oo Somaliland aaminsan baa jira oo wax bartay oo dalkana garanaya dadkana garanaya maxay haydeen inay shilalka ku wareejiyaan oo ay u dhiibaan waayo markaad aragto nin wal oo isa soo taagay jiifiyada marka ka yimid Yurub baasaboor baay marka waayo haddii Yurub shaqo fiican ka haystay wuxuu intuu iman waayo dalkiisa baa mushtari sameyn waayo uu shaqo u abuuriyo isagii baa soo shaqo doontay isagii baa soo shaqo tegay marka anigu waxaan u arkaa xaq darro lagu hayo maxay haydeen shirka Soomaaliya oo qurba joogga intii soo shaqo tagtay ay ku hayso ma qurba joogga oo dhan muwaadiniinta وهاك والسهرة runtii sida aad tilmaantay waxa mudnaanta la siiyaa qof qurbaha ka yimaada oo qofkii wadanka joogay ee PhD ga ahaa ama masterska diyaariyay ee ka baxay jaamacadaha Hargeysa iyo Camuud ama gobolada Soomaaliland qaar kamidaba runtii laga door bidayo oo runtii shaqadii laga siinayo qofkii qurbaha ka yimid taasi waxay ku abuurtay dhalinyaradii in runtii ay dalka ka hayaamaan oo ay iyaguna yiraahdaan annana hadda waxaan baasaboor soo qaadano markaasi xukuumadda adigu runtii qof fanaanada oo aad loo tixgeliyo qof mujaahidada oo kalmadeeda amba runtii hadalkeeda la tixgeliyo ayaa tahay dawladda ma kala hadasho oo runtii amba dadka u dhun daloola dhalinyarada ma tiri arrintan han wax ka bedelno oo bal dhalinyarada waji kale haynu bedelno haynu raadin waxyaabo kale oo dhalinyaradu ku joogaan horta markaad maxay ahaydeen adoonaysa inaad waxyaabaha kala hadasho waxa weeyaan qofkan aad kala hadlaysaa waa inuu yahay qof muwaadin oo dalka ku nool oo dalka jooga inta badan ee loo marayo madaxweynaha jaranjaradiisa waa wada qurba joog waxaan doonayaa inaan kala hadlaan qurba joog marka maba oran karaba waxaanad haweysanayso ma jirto iraayihii aan anagu bushka la joogi jirnay jabhadda la joogi jirnay maxay haydeen gudoomiyaha iyagii ahaayeen jeclaynay ag joogi jirnay maxay haydeen maaha waxa weeyaan dad daaqadaha ka soo daatay oo maalay ka yimaadeen aanad garanay ayaa ka buuxa oo maalin haddaad iskaaga su-aal weydiintaada xaggeed waktigaa joogtay maxay haydeen isaga jaamacaddiisa iska diyaarsaneeyey ama iskaga raaxaysaneeyey Yurub iyo Maraykan marka uma baahna qof garanaya ama dareemaya xanuunkan la soo maray ama dagaal ha ahaato ama maxay haydeen dagaal sakeeya ha ahaato ama baahidan dadka dee haysta ee Threat has been detected.
ma rabaan marka waxa weeyaan anigu waxaan jeclay abadii hore waxa la dhageysan jiray idaacad kaliyato BBC daaway iminka waxa la sameeyay 110 idaacadood website TV mid waliba wuxuu doonayay inuu sheegayo marka haddii aad istaado wax wanaagsan mari TV-da baan ku ogolaanay sidaad u aragtay marka anigu inta markaan saa wax yar sheegba waxaan soo dhigaa Facebook-ga ama ha laga qaato ama yaa laga qaadan waana saamaysaa dadka dhalinyarada ee Facebook ku jira maxay haydayaan aniga ku xiran Facebook marka waxa weeyaan iyaga laftigooda tahay inay digisu eegaan ururda jooga ku soo mamay inay barashar ku hay xataa madaxweynaha barashar lagu hayo xukuumadda barashar lagu hayo daftigeeda waayo qof baasaboor dibadeedka oo shalay yimi ma dareemi karo baahida dalka antaasaan aaminsanaa haddii ku kaleega jarana taasaan odhanaya war dalka ku soo noqda sida qurba jooga kale idinkoo shaqo abuuraya laakiin dalka hawsoo shaqo tegida waa dad dalka usoo shaqo tegay oo aan waxa la eray dan kaleeyihiin haba yaraatee aanay jirin mid iyo laba wanaagsan inuu ku jira oo maxay ahayday intuu shaqadiisiisa soo iska soo dhigay yidhi waxaan doonayaa inaan dalkayga wixii aan bartay wax ugu qabto way jiraan laakiin inta badan waxa weeyaan waxay dhalinyarada Somaliland jooga ama madaxda Somaliland joogan baa tabuurada ay buushin karaan inay jabuuskooda ka qaataan ma meeshooda ka qaataan maaha mana aaminsanaan وهاجاج سهري وعري ونكسن لكن أديك الله فهان تاذو مسكود يدي أن أنت عن كلا سعونين فيسبوك يفرمها حاجة أتصور دقيسو إن أديك مقطعي دنيرتي ودن كشوكتي إن أدرح مرتو أو أنت كران كاجا وعي جرين أد مقطعي أدو وعي جريسو anigu waan dhalinyaro badan baan isku dayay dhalinyaradan had iyo jeer kubadda ciyaarto had iyo jeer hidadhow igu yimaada oo igu xidhan ilmo waliba ka kooran maxaa yaala qurbajoog baa meeshagooda haysta waa kelimada ugu horreysay ku odhanayaan war anaguba qurbajoog baan adna anagan dalkiina mid iyo labaa tiimi intiina badan waa timaadeenoo waad soo wada shaqo doonateen ayaa lagu odhanaya marka waxa weeyaan sidii isu difaaci lahayd dib u badbaadi lahayd in waxaan waxa weyn wax saameynaya taabanay oo inaad tiraahdo qurbajoog intii neemanaysa inta badan sareynina dalka shaqo soo geliya aw soo shaqo doonanina waxa weeyaan waa dhalinyarada waa bahadlaysaa way ku dhegeysanayaan laakiin haddana niman meeliyo cadahay weeli ka mido waxay leeyihiin haddaad dhimato geeridu marday noo shaqanta dhimadeedu yidhaahdan aniga waata horta waa runo sahre sida aad kaga dhawaajisay annaga lafteedu si keesiyo ahaan waxaanu la xidhiidhnay dhalinyaradii intii ka soo badbaaday badweyntii doonidii ku qarantay badweynta oo qaarkood ku sugan Greega sidoo kalena qaar iyagu iminka usii socdaba oo sii tahriibaya markii aan ku nidhi waad aragtaanba asxaabtiin iyo dadkii meel wax ku wada cunayseen ama waseexanayseen in badweynta midkooda laga soo yaacay maxaad ka doonaysaan runtii meel loo noqda ma haysano oo runtii dalkii caynkaas wax shaqo la'aan iyo busaarad iyo runtii waxyaabo badan ay tilmaamiyaan qayilnaa oo hadaan waxbi aanan xog qabsanayno dadkii qurbaakii sida aad tilmaantay un bayagu hadalku ugu dhigeen balse runtii waxa ayaan daraa in xukuumadda lafteedu ay arinta ka gaabiso oo dhalinyarta ay culayska saar wada maadaama yihiin dhalinyartu laf dhabarta koobaad ee ummadani amba shacabkani leedahay waanad ogeydo adigu goobjoog baad ka hayd waqtiga dalka la xoreynayay dadkii ugu badnaa dalka xoreeyay in dhalinyar u badnaayeen runtii ku jiray dugsiyada iyo haday noqoto jaamacadaha sahray markaynu taaga soo noqono waxaan bal ugu soo dib ugu soo noqono dhinaca sanad guuradan aynu ku guda jirno oo ay May hadda bilaabantay oo Somaliland ay tahay bishii ugu runtii muhiimsaneed bil aad ay weynayso Somaliland ay tahay oo ku jirto 18 May 1991 markii burca laga dhawaaqay gool isku taaga jamhuuriyadda Somaliland sidee baa imika ay uga socotaa Hargeysa ku sugan tahay horta wallahi aan kalmad yar dib ugu noqdo dhinaca ay leeyihiin shaqa ma jirto dhalinyaradu waxa weeyaan dhalinyaradu jaamacaday ka wada baxeen marka Yurub la joogana jaamacada adigoo ka baxa dilka xaaraysa ama jaamacada adigoo dhigta ayaad intaad meel soo nadiifiso lacagta iskaga bixinaysa dhalinyaradu waxa ka maqan jaamacad haddaad ku jirto ka baxdo dhamaysay markaaba xafiis noo fariistay experience baa loo baahan
khibrad baa loo baahan yahay inaad waxbarataa loo baahan yahay shaqa la-aan dalka ma jirto mid aan kuu sheego midiga gunta anigu meel baan maxay hedaysahay ma u malaynaysaa dad ethoobiyaana ay shaqeeyeen markan somaliland daraya meel walbana dhibkaasa haysata horta shaqa la-aan jirtaa ma jirto ee waxa weeyaan waxaa laysku haystaa waa xaggan sare xagga hoose shaqa way buuxdaa shaqa way taallaan waxbayaan xukuumadda eedna saari marmarka qaar bay dadkeenu ay maxay haydeen xag dhaafaan waxa weeyaan dadkii wax bartay jaamacadaha ka baxay waxa ku adag waar xafiiskan aad doonaysa inaad ka shaqayso garanmaysidii horta dadka la shaqeeyo voluntary ku shaqee inta hore oo fii ku shaqeeyo waxbaro aad maxay haydeen aad berid ka maalin xafiiskan ku hanato intaa shaqaa la raadinaya dadkeenuna ma rabaan inay shaqo ka shaqeeyaan ka dhulka xaaraa waa oromo mas-uuliyada qodaa waa oromo ka maxay hayday maxay hayday hodheelada weelka xalaa waa oromo waxa weeyaan shaqooyinkii hoose oo dhan kuwa wax dhisaya waa wada ethoobiyan marka shaqooyinkii hoose oo dhan waynu ka tibirno waxa weeyaan nin dacwadii teediina ka tagtay tiinagana gaari weyda oo kale ayaynu noqonay haddaan usoo noqdo 18 May 25 sano gaadhay alxamdulilah anigu waxaa ma leeyahay dalkan allalaan baa leeyahay waa dhulkii ilaahay somaliland ma waa allalaan waa dhul ilaahay iska wado waa dad ilaahay abuurtay wado oo qalbigooda ogyahay cawdooda mooyaane inaanay qofka maanta calooshooda ku digay oo ilaahay wuxuu inagu yaalinayaa waa intaa marka iminka waxaa lagu jiraa waktigii diiwaangelinta ee diinayda idima xasuusna walow la xasuusan yahoo dee guddi loo saaray maxay haydeen aanaan anagu waxba ka ogeyn waayo 25 sanaanu soo taagnay somaliland waxaanu jeclaan lahayn in dadka wax xabaabulaya ee garanaya qiimaha leedahay tareenkan dad baa dhexda kaga soo dhacay marka waxa weyn dadkii 25 sano soo taagnaa haddii laga daacad yahay 18 May dabaaldegeeda waanu soo taagnay ma miisi halgalayni oonu wax gashanay oonu qiimaheeda iyo xanuunkeeda iyo dhibkeedaba garanaynay in maxay haydeen nalagu qiimeeyo oo dadkii intaasoo dhan soo taagnay soo halgalayay ee aan hadeena ka seexan in waxay ku qab wax kaga baxan mooyaane aan waxba ku qabin in xataa lagu ixtiraamay 18 May abaabkeeda maadaama 25 sano ay tahay maxay haydeen deena lagu soo sharfoon la yiraahdo ka soo qayb gala oo maxaa nagu soo kordhinaysaa anagu tareenka 4 sano ku jirnay anagu 3 sano ku jirnay anagu 5 bilood ku jirnay anagu 25 sano diin ku horeeyay doon saarin tareenka marka dadka dhexda ka soo biiray ma rabaan wixii tareenka soo horeeyay ka daadinayaano dibna ma rabaan inay soo daaleen laakiin waxaan kaga ilaayaan wada shakhsi baan hayo inaan dibnaba u joogsanayni aan eedinay insha allah sanadkii horena moogtay 18 May waxaan ahaa meeshii keliyaata ee laga xusay 18 May dadorda alxamdulilah waa la iiman karay oo la iga xiri karay laakiin waa la sharfay waxa la igu sharfay inaan saara halganaydo ee la igu sharfay dadkii sharfayna waa maadani laakiin 25 guuradan Somaliland weli waxa ka muuqda maxay haydeen diyaargarow fiican kama muuqdo oo waxa weyn diiwaangelintiida ayaa naga soo dhaxgashay marka dadka shicibka waxaan ku guubaabin lahaa meel kasta joogaanba inay si degdeg ah isu diiwaangeliyaan si aynu uga faa'iidaysano ilaahay 25 sano ku gaarsiiyo waa hagaag sahray sida aad sheegtay diiwaangelintii baa inaga soo dhex gashay oo iminka ka bilaabantay maalin sabtidii gobolka Maroodijeex oo ay ka bilaabantay insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadweynaha ku sugan goobahaasi 160 goobood baa laga diiwaangelinayaa inay runtii si nabadgelyo ah oo sharaf leh ay isku diiwaangeliyaan taana Ilaahay baan ugu baryaynaa sahray dad badan oo afka Soomaaliya ku hadla gaar ahaan dad reer Soomaaliland ah oo runtii aad
taariikhdaada u qadariya una ixtiraama inaad dalkan meel migale kaga jirtana ogsoon aqoontoodana runtii ay ka buuxdo waxa ayaa si toos galabta ku dhageysanaya studio-gana si toos ugu xidhan dadka reer Soomaaliland soo tooska ku maqlaaya qaarkood waxa ay ku jiraan qabanqaabadii xafladda 18 May oo sida aad tilmaantay ay 25 guuridii tahay oo nus qarni in aad loo weyneeyay ay tahay oo isla magaaladan Ottawa ku suganahayba laga dareemayo dhaqdhaqaaqa weyneynta maalintan qaaliga ah dadweynaha runtii aad ku dhageysanaya ee ku sugan Canada gaar ahaan magaalada Ottawa maxaad u diri lahayd fariin ku saabsan 18 May waxaan leeyahay aad hortii Ottawa waan 18 May markaad eegto Canada waa meel challenge badan weeyaan oo had iyo jeer iskeedin waxaan dadku markay bartaan way baraka badan yihiin maxay hay'ad waa la isku challenge gareynaa marka waxaan oran lahaa kaliyaata waa 25 guuridii waan in hambalyeynaya waanu de website-adan kala soconaa laakiin waxaad isku taxalistaan sad meel isugu iman lahaydeen meel kaliyaata idin koomidaysan aad ugu qabsan lahaydeen waana idinku hambalyeynaa waayo markii iliko kaliya maahe Canada ama reer Toronto ha ahaadaan ama maxay haydeen reer Ottawa ha ahaadaan iyo Edmonton kaliya orto aad baad sistaan maxay haydeen dalkiina iyo dadkiina qadarinaysan maxay haydeen waxay ka muuqataa waqti walba sidaad maxay haydeen aan wararka idin kala socono marka aad baan idin hambalyeynaya reer Ottawa waxaan leeyahay halka ka sii wada ilaahayna haydin la qabto 25 kan 25 kale iyo 25 kale iyo 25 kale ilaahay inta dadkeen iyo dalkeen jirada ilaahay haynoogu wado آمين ilaahay baa wata آمين كل لبدي سؤال ugu dambeeyaan taagana rumana gabagabadii bal su'aasha kale ha saaxiibkii Cabdullaahi qalabka fadhiyaan siiyo ما كله تو سهري هذا المي ريبين haddii alla huidmayo kelmad baan dib ugu noqonayaa hadda leeyankooy baa waddanka ka waashay dadka aan ogeyn qofkani waxa uu soo maray taariikhda uu soo maray halka uu soo maray sida uu mugtay nolosha mugtay uu naftiisa u horay iyo qof aan ogeyn oo hadda leeyankooyay uun isagu kulleeto haddii dowladda jirta ay xisaabin weydo xagga alleh ayaa laga xisaabinayaa qof waliba wuxuu gashaday waddankan ama ha noqoto maaliyad iyo nafba marka waxaan kusoo gebagabayn lahaa usaaray idinkuna bal dadaala oo haddii allahu idmayo wuxuu yidhi gargaraacideeda iyo haddeen geedka hadalkeeda haddaynin inaad mogtahay ka hadasho dhallinyartaa wuxuu sheegto oo dadka aad taariikhda uga sheekayso oo aad mogtahay anigu waxbaan odhan lahaaba haddii allah awoodda leh ii ogolaan lahaa oo aan iman lahaa waddanka inaan taariikh museum ah oo dhan inaan kaa samayn lahaa oo aan ajarada ku duubi lahaa si mogtahay jeelba jeel ugu sii dhiibo aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa gabagabadii hadalka sahray maxaad reerorta waa odhan lahayd reerorta horta waan salaamayaa waxaan leeyahay maxay haydayaan ilaahay haydin la qabto wax waloo aad dalkeena u qabanaysaanba laakiin waxa weeyaan inaad Ottawa degantiin baarlamaan bay leedahay dowlad bay leedahay waa inaad ka miradalisaan anigu in sanadkan haddii ilaahay waa meeshii ugu horreysay ka sheego waxaan teliya haddii ilaahay sabaan bisha May bisha July ayaan ka baxayaa halkan magaalada Lyon baan ka hooseeyaa bisha inta ama August ku yaqaan bisha 8aadna waxaan teliyaa Japan iyo Korea iyo China haddii ilaahay marka waxaan gruubkayga Faransiiska baragtaan ayaan israacaynaa waxaanan u tegayaa calankayga inaan meel walba qamuujiyo ka soo taago waxa weeyaan cidna bayaan lagu hadlayno qof walba qof ku hadlayno waxa weeyaan waxaynu nahay dalyar oo dad wanaagsan leh oo dad alool wanaagsan leh oo dad waxaa soo dhibaataa inta la soo gaarsiiyey haddana maanta lagu wada nool yahay Hargeysa markaad timaado dhex timaado waxaad keenaysaa ummad ilaahay oo dhan Soomaali qabiil ka maqan meel waliba wuxuu isleeyahay qof waliba wuxuu isleeyahay meesha nabad ah wax ku darso dadkana kama maxay haydeen kama duwana oo dadkaasi la siiyay marka meesha la jamanayo ayaynu haysanaa marka u olaleeya cid qof walba ku hadlayn maxay haydeen walaa dawladda ku hadlaysaa walaa baarlamaan baad ku hadlaysaa walaa guurti baad ku hadlaysaa cidna baa ku hadlaynaa waxaan qof walba barbarka ka baxaya waa bakeera kale
waxaan keliya kan doonaya inaan ku darsado ka codsado madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxa weeyaan wuxuu huwan yahay sharaftii iyo karaamadii iyo codkii dadkiisa waxaan ka codsanayaa inuu dadka siyaasiyiinta ee siyaasadda u xiran ciday doonaanba ha ahaadaan inuu soo daayo waayo maxay haydayeen waxa heerkayna soo gaarsiiyey waa dad la xidho dad la dilo iyagoon wax loo haystaa jiro marka waxaan ka codsan lahaa madaxweynaha wuu garanayaa xanuunka siyaasi xidhan uu leeyahay marka inuu maxay haydayeen soo daayaan ka codsan lahaa dadkana waxaan leeyahay dibadda waan aragnay waad naga hargeysa waa ka dardar badantii laakiin waxaa laga yaabaa hargeysa iyo booram iyo laascaanood somaliland dhan iyo xeerigaabo inaan anagu idinka dardar badnaano waayo anagu limidka ugu ayaanu oradnaayo waxa weeyaan daawooyduna arki doontaa marka tviyadana laga soo saaro aad iyo aad waa insha allah waa runtii aad kuga mahad celinay sahray runtii qof milga kule dalkan iyo qarankan maamuusna ka huwan ayaa tahay runtii anaguna aad baan kaga mahad celinaa waxaana naga ballanaa barnaamijkan galabta in si toosa looga dhagaysan doono raadiyo hargeysa adigoo ku sugan caasimada dalka somalilan aad si toosa barnaamijkan uga maqli doonto taana naga kaga ballan qaadnay iyo dhammaanba shacabweynaha ku sugan qurbaha in si toosa ay kugu dhagaysan doonaan meel kastoo ay ku sugan yihiin websaytada ay ka dhagaysan doonaan iyo runtii website-ka aan ku leenahayba baadidonews.com iyo ckc-ba inta nagu xidhanba sahray runtii gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan runtii aad la talisay dadweynaha degan reer Ottawa iyo Canada-ba iyo dhammaan caalamka oo dhan ee reer Somaliland adigoo runtii huwan caalamkii Somaliland inaad u baxayso Korea iyo Japan dhawaanna waxay ahayd sida aan ogsoonahay Korea iyo Japan Soomaa Korea, Japan iyo China. Korea, Japan, China. waxaan doonayay iyada waqtigu naga dhanyahay inaan su'aal degdeg weydiiyo haddii aad naga jawaabi karto ma jirtaa mar aad Faransiiska timid oo runtii aad group raadin aqoonsiga Soomaaliland raadinaya aad ku jirtay oo runtii aad meelo badan oo gobol badan Faransiiska kamid aad soo marteen waxaan soo maray maaha Faransiiska kaliya waxaan tegay dalalaan Somaliland laga aqoon kuwa Somaliland bay yiraahdaan waxaan ku yiraahdaa waa dal yar oo Soomaaliya ay kala go'een waan u macneeyaa habka igu fudud markaa aan ugu macneeyaa waayo dalalkan diiyay caalamka Somaliland waxa kamid ah maxaa ahayd Czech weli maynaan tegin Italy maynaan tegin Spain weli idinagama tegin waa meelahaan calankeena geeyay maaha Yurub tan kale waa Sweden waa Denmark waa Norway waa maxay ahayd Holland waa Belgium حتى بهذا البلد وح كنت على بروكسل هذا اليوروبيان يونيون كفيلا وحوين dadku markay yimaadaan dadka yimaadana waa cadaan qof Soomaaliya Denmark-an ayaan ku arkay dad kaleed Soomaaliland oo igu timi laakiin inta kale dadka amniga waa ajnabi oo aan bara waxa weeyaan waxa laga saaran dalkayga waxaan doonayaa kale inaan dhalinyarada ku yiraahdo nafsan lagu tuutee تعدي قصبتي لتاريبيان ترسينا لتاريبيان ترسينا يا فانتا فدير تعبان له بنت قيس كنتوسرو دوما نحمدو يتاهن كل الشجاع يتاهن كل الشجاع تاريبيان ترسينا يا نفتن لقوتك تعدي قبتي التهريبيان ترسينا يا التهريبيان ترسينا يا فانتا فدير تعبان له بن هسكتو سنو توبد حمدو يتاهن كل فقان يتاهن كل فقان فانتا فدير تعبان له بن هسكتو سنو توبد حمدو يتاهن كل فقان يتاهن كل فقان قفك
tahriibayo qofka tahriibayo abtiir ha isku xidhin nacab ha isku tolin tiir ha isku xidhin nacab ha isku tolin taab ha isku geline aakhiro tulo ما شاء الله runtii waa hees aad u qiimo badan oo dhalinyartu runtii aad u qadarinayso sahraa runtii ma noqon mayso markii ugu horeysay iyo markii ugu dambeysay waan xiriir joogta ayaan ku dhigi doonaa wareysigaadan runtii inaan buug ka qornaa waa suurtagal amba aanu cajilad iyo documentary ka diyaarino aad iyo aadna waan kaaga mahadcelinaa sidaa wanaagsan ee nooga ajiibta xiriirkaaga aamiin walaa adaa mudan kula fogaan tahriibayo qofka tahriibayo abtiir ha isku xidhin nacab ha isku tolin tiir ha isku xidhin nacab ha isku tolin taab ha isku geline aakhiro tulo tahriibayo qofka tahriibayo tiir ha isku xidhin nacab ha isku tolin tiir ha isku xidhin nacab ha isku tolin taab ha isku geline aakhiro